بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. halkii waynu kasii wadnaa duruusteeni fahamka islaamka oo aynu soo koobkoobeyno tilmaamo oo kala ah ama tawjiihada islaamiya. waxaynu kusoo jirnay qaybtii camaliga ahayd islaamka laqa ficilka ahayd. marka rugnigii koobaad waynu soo maray shahaadada. rugniga labaad ee arkaan islaamkana waa as-salaa. qofka markuu muslimo salaad baa laga rabaa. ugu horeyn salaadu waxa weeyaan waa xadhiga allah subxana wa tacaala iyo addoommadiisa ku wada xidhaan, waa khadka ku wada xidhaan. acmaasha madaxdeena wey, madaxeeda qofka waxa ugu horeeya ee maanta qiyaamaha la xisaabinaya waa salaada qofka. ina awala ma yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaama as-salaa fain salaxat salaxa saa'iru alacmaal أعماله وإن فسدت فسد سائر أعماله. حديث وي عمل جوهر يقيمها الله حسابنا وصلاة. صلاة يا فتاة أعماش سكنا وا حياة هذا كحمة صلاتنا أعماش كلنا ويكحمة نسا مركب وحوي يغفكوا إنه صلاة إلى شدوية كنت دارو واحد كذا المهمة إنه برتو أقون تيدي أو محها تاي شروط هذه وشبات كذي أركان تيدي. صلاة ونور قفك مركز وجهي ساويك تقف كستو محا تاي صاحب صلاة كم ميدو كستهيش ما عصاده مهمد بعد ما عضاض نور باك سقيا هذيك لا وح باك سقيا أنا أرق قرنين والدبورة وجهيس مركز صلاة قفك إنه كنت دالوي صلاة وقفك ونورانيسا صلاة ميدو كأنه صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر حمانا هو قفك كسرتها يفسق غير بالعادة تدقوا أنا أكسب بيكون جنسا مساعد بيكون جنسا رول العبادة بيكون جنسا صاحبه أنا أكسب بيكون حيسا ويكون ورانسا صلاة ويكون ورانسا وحمر كان مهمة تذكر صلاة دين لوجو يورو هالكاجا جو يبدت تذكر قرابة هذا صاحب هذا وحصورن آيات كيسيت المام يدي حديثه وأنا لوجو يرد سه نبي ده هراء نبي إبراهيم نبي ده جو يرد كذا صلاة هالكود صلاة مركب حويان waxa inta badan dhacda dadka qaarkii salaad waxay uga tagaan waxyaabo yar yar oo aqoon la'aan ma jahli ka hayo. waxa kamid ah hal bay ugu kaadayo marka biyada dhulka tagto hal ba kaadi ku saydhay qiimada haye geela kaadidiisa iyo maxay ahaatay saaladiisa iyo ariga waxa wixii hilibkooda la cuno ma aha nijaas taa ku talagal si la iskaga tukanaya. haddii nijaas kale marada kaaga dhacdo iyaduna waqtiga soo galo waad iska tukanaysaa, iyaduna dharkaagaas ku tukanaysaa. culimada qaar waxay yidhahdaan waa la soo celinayaa oo sida dee maxaa markaa qofku uu doonayo waracnimo inuu sameeyo dib buu isaga soo ceshan karaa, hadhowto salaada dib uu tukanayaa. shaafici iyo madhabtiisana waxay yidhahdaan iyagu qofku dharka iska halkaas iskaga tuuraya oo iska tukanaya hadduu isagoo qaawan. marka laakiin waxaa muhiim ah inaad dharkaas iskaga tukatid hadhowna salaad soo celisid. taasaa ugu maxaa ahaatay ugu walacsan. qofku isagoo xanuunsanayo jiifa buu iska tukan karaa, isagoo fadhi ku tukan karaa, kuraasi ku tukan karaa, daara la socdo, doon hadduu la socdo, mar walba waa tukanaya salaada. arrinta kale iyaduna aad ku muhiim waxa weeyaan qofka hadduu biyo waayo, dadka badan ma yaqaaneen, ciid baa lagu gagabaystaa saasaa gacmaha loogu dhuftaa, wejiguna waa la mariyaa, markana waa lagu dhuftaa halkaa iyo halkaas saa loo mariyaa labadaa dhag. mar la yidhahdo waa la kordhiyaa dee culimada way qaar way jiraan halkaas la geliyaa xusulka si halkii biyaha, laakiin cagaha iyo madaxa iyo meela ma marinaysid, labada jeer baad ku dhufanaysaa besba. haddii aad qubays u baahan tahay oo salaadii ku qoys kugu waajibana iyada lafteedaas intii baad ku dhufanaysaa, niyaddu baad qubays ka dhiganaysaa iyo weysada wada socda waad iskaga tukanaysaa. hal mar maa lagu tukanaya, mar baad lagu tukado, mar walba waa inaad ka gabaysataa. hadda dhaawac tahay xataa biyaha aad ka baqday ama jaban tahay ama wax kale oo biyihii baad haystaan biyo qawi yihiin oo laga baqo waa iska gabaysanaysaa, iyadana saasa ku tukanaysaa. marka laakiin mar salaad qurun baa lagu tukanaya way takale iyaduna aad ku muhiimka waxa weeye dadka salaadaha ka mashquulisa waxa weeye qasriga dadku markay safar galaan qasriga inta badan ma yaqaanin oo salaadiin dib loo dhigo oo duhurkii casarka dib la isugu raro ama hore la isugu soo raro duhurka labadaba tukantii afar laga dhigo waxa la laba laga dhigo duhurka tukanaysa afar kala googaano laba mar tukanayso. cishaa iyo maqribka dib baa la isugu riixi karaa ama hore la isugu soo rari karaa iyagana. وحوي عشاء لما ركعوا ضل يرجع مغرب لكن لما قابيو
salaad subax lama gaabeen inteedu baa la tukadaa marka iyadoo aan safarna ku jirin haddii ay qasri noqoto maxay ahaatahay taqdiim iyo takhiir waxaa jira markaas roob jiro oo jamac iyo waxaa laga baqo inuu hadhowto roob kala xidho taa waxa weeye iyadoon taqdiim baa la sameeyaa oo maalan laakiin salaaddii la gaabin maayo taa adigu mar haddaad safar ku jirin salaadda lama gaabinayo inteedii baa la tukanaya laakiin waa la isku raraya waayo kuwaas waa kuwa mushkiladda badan inta badan dadka ay dadku aqoon la-aantu waxay ku keenaysaa in qofkii wixii ku cuslaadaan marka yani aqoonta loo yeesho salaaddii arkaanteedii iyo maxaa tahay shuruudaheedii waajibaadkeedii waxaasoo dhan axwaashi marba waxa dhaca waxaa kugu iman kara intaas markaad baratid dadkana aad ugu yeedhid salaaddii waxaweyn khayr baad maad helaysaa insha allahu tacaala waana furaha baynu nidhi wax walba wanaagga iyo khayrka o dhan salaadu halkaas baynu u daynaynaa siina faafiya hana la barto waxaynu inagu u tilmaamaynu samaynaynaa tawjiihaad yaroo kooban baynu samaynaynaa oo waxbaynu tilmaamaynaye dee casharadii dhigi mayno laakiin casharadii waa lasoo helayaa maalin baad ku baran kartaa wax walba haddaad dhegeysato xataa qura marka channelkana sii sheergareya dadka khayrka usii sheergareya duruus kaloo aad u muhiima ku jirta oo maxaa tahay soomaalida dhan bay ku wada xidhan tahay oo higaada qur-aanka ah marka aadam islamic channel baa leedaa lacag laguma sameeyo waa iska free waxaad samaysaa markaa subscribe ku samaysa si duruusta kale kugu timaado lambarada whatsappka nagala soo xidhay waxaan siinaynaa higaada qur-aanka oo 10 maalmood lagu dhiganaya ama 7 maalmood ama 3 maalmood lagu baranaya dadka qaarkii ama bil qofka ugu dheeri hadday kuu soo bixi weydo google-ka geli higaada qur-aanka waa channelkaas ku soo baxaya taana nagala soo xiriira siina sheer gareeya golayaasha whatsapp yada meel walba dhiga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu